marraalli ku noqon weyday ilaahay inuu midab madow ah ku siiyo ma waxayse kula tahay midabka madowgii inuu ceeb yahay dullinimada ku haysatay isku kalsooni la'aanta ku haysata aadam baa ku dhalay carradii madoobeydee laga abuuray baad ka soo jeedaa kan cadna carradii caddaydee aadam laga abuuray buu ka soo jeedaa kan casna carradii casayd buu ka soo jeedaa adiga ma doofaar baa ku dhalay mise daanyeer markaad midabkaaga nacayso soo aadam kuma dhalinoo bini aadan ma tiid karaamaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa midabkan ku siiyey haddaad madow tahayna waad ku quruxsan tahay haddaad cas tahayna waad ku quruxsan tahay laakiin markaad isku kalsoonaan weydood isyasto adugu ood istidhaahdo madowga iska tirtir iska reeb madowga iska reeb oo xagga isku reeb oo kiimika iyo balaayo intaad jidhkaaga gelisay adigoo dhanba aad gubato oo dildiil yeelato oo macnaha waxa weeyaan jidhkaagii qiimaha badna aad ku ciyaarto ilaahay agtiisana xisaab adag baa ku taalla sharaftaadii iyo jidhkaagiina waad ku ciyaartay ilaahay intaad ka baqdaan dumarow shirkadaha ganacsanaya gaalaa inaga ganacsanaysa rag baa fikiray gaalaa fikirtay markaasay intay telefishinada inaga tuseen midabka madow inuu ceeb yahay bay soo saareen alaab aan ka iibsanno markaasaa layna yidhi tan iskaga tirtira madowga tan iskaga tirtira waa ganacsi markaasaan annagiina la qaadannay waa laynaga faa'iiday intaasoo goor baa laynaga faa'iidayaa aakhiradeenniina waan gadannay ilaahay subxana wa tacala intaan ka baqno ha layska daayo waxyaalaha noocaasoo kale ah ku kaaftooma ilaahay wuxuu qayb idiin siiyey oo midabka alla idiin siiyey raalli ku noqda wabillahi tawfiiq